ninkan aad u jeedaan magaciisa waxaa la yidhahdaa Daniel Figes. Daniel Figes waxaa la xidhay isagoo jira da'da 16 sano. Waxa uu xabsiga ku soo qaatay 25 sano oo xadhig ah. Markii uu soo dhammaystay 25 sano kadib, maxkamaddu waxay dadka hortooda ka caddaysay inuu Daniel Figes 25 sano ku xidhnaa xukun la'aan, isla markaana aan lagu hayn wax dembiya, iminkana uu yahay dembi la'aan. Balse aniga waxaa iga yaabisay oo dhacdada aad iga sii yaabisay ah, sidee cunug yar oo aan qaangaadh ahayn isla markaana aan gaadhin xilligii qaangaadhnimada sida gaaladu ay qoraan oo ah qaanuunkooda inuu ku taalo 18 sano loogu xukumay xabsiga intaa leeg ama loogu hayay 25 sano xabsi. Muddo 25 sano kadibna si sahlan ay ugu leedahay maxkamaddu dembi ma lihid. waa waxyaalo cajaa'ib ah. Sharciga caalamka ka jira waa sharci ka duwan sharciyada aynu qaano. Inaga dadka badankeena ama Soomaalidu waxay ku doodaa in adduunka sharci ka jiro, balse adduunka waxaynu ka arkaynaa dulmiyadii ugu waaweynaa iyo dhacdooyinka ugu la yaabka badnaa. Maalin dhexdaas dhacdaan akhrinaya waxaa ka mid ahaa nin in la xiray isagoo 14 jir ah, lagana soo saaray xabsiga isagoo jiro 80 iyo dhowr sano. Macnaha xabsiga noloshiisa oo dhan xabsi buu ku qaatay. Balse qofka waxay ku qancinayaan ayaa ah inay u iibiyaan sanadihii uu xabsiga ku qaatay. Tusaale ahaan oo kale Daniel Figes wuxuu xabsiga ku xidhnaa 25 sano. Waxaa la siinayaa 25 milyan oo ah in sanad kasta lagu qiimeeyo 1 milyan oo gabadheena u dollar. jeedaan waxay ka soo jeedaa dalka Afghanistan. Gabadheer waxay ka adeegan jirtay dukaano dhow gurigooda oo uu haystay oday waayeel ah. Odayga waayeelka ahi markay gabadha yar gurigooda meeshooda ka adeegto maalin kasta waxa uu ka duubi jiray fiidiyoyo. Sababtoo ah waxaa ugu xidhnayd CCTV camera dukaankiisa. Kamaradaas ayuu gabadheer ka duubi jiray isagoo gabadheer ku samayn jiray waxyaalo aan munaasib ahayn sida inuu jirkeeda taabto ama uu shushmiyo iyo wax la midka. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu si kedis ah u soo dhigay TikTok-ta fiidiyowga gabadha yar. Fiidiyowgii ayaa u kala qarxay waxaana gaadhay 5 milyan oo qof ayaa daawatay. Gabadha reerkoodii ayuu gaadhay fiidiyowgii. Gabadha aabaheed waa u garaacay si uu garaacay ugu dambeyntii nafta ayuu ka qaaday. Markii uu gabadhiisa nafta ka qaaday kadib waa ay soo baxeen reerkii dhan waxa u yimaadeen odaygii dukaanlaha ah isagana nafta ayay ka qaadeen. Ma jeclaan lahayd qaabka in loo galo qof kasta oo kamarad ka duuba gabdhaha. Dareenka hooyanimadu waa mid ka baaxad weyn sida aynu inagu qiyaasayno. Gabadhan aad u jeedid magaceeda waxaa la yidhaahdaa Disow. Hooyada waxaa ku dhacay kansar. Isla markaa dhakhaatiirtii hooyadeed qali lahayd waxay weydiiyeen lacag gaadhaysa 50,000 oo dollar. Iyadana may haysan lacagtaas sidaas u badan ee 50,000 oo dollar ah sida ay hooyada u daweysato. Waxay raadisay fikrad ay samayn karto ama waxay hooyadeed ku badbaadsato. Ugu dambeyntii waxay garatay inay iyadu isu soo bandhigto oo ay iskado si ay hooyada u daweysato. Waxayna iska qaaday sawir waxayna soo dhigtay social media waxayna ku soo qortay gabadh oo beec ah ama iib ah. Hay'ad oo dadka caawiso ayaa aragtay gabadha sawirkeedii iyo dadka xuquuqo insaanka u dooda. Gabadha ayaa loo tegay waxaa la siiyay lacagta ay u baahneyd hooyadeedna waa loo daaweeyay. Iyadiina waxaa la siiyay shaqo sidaas ayayna shaqo ku heshay. Ninkan aad u jeedaan magaciisa waxaa lagu magacaabaa Brian Barney. Waa nin ku nool dalka Ingiriiska isla markaana ahaa milyaneer. Waxaana haystay lacag gaadhaysa 16 milyan oo pound. Balse waxaa qabsatay dhacdo aad u la yaab badan. Xaaskiisa waxaa ku dhacay kansar. Kadib lacagtii uu haystay oo dhan waxa uu ku daweeyay xaaskiisa. Markii xaaskiisa guriga ka soo baxday ama dhakhtarkii ka soo baxday, waxay u timid isagoo ku jira guri yar oo ijaar ah. Aad ayay ula yaabtay. Waxay ku dhahday maxaa ku dhacay hantidaadii iyo dhulkaagii. Waxa uu ugu jawaabay wixii aan hanti haystay oo dhan adiga ayaan kugu daaweeyay. Gurigan aan hadda ku jirnana waa guri yar oo ijaar ah oo xogaa yar oo lacag aan ugu jirno. Waxay ugu jawaabtay kuma noolaan karo nolol noocan oo kale ah ee ifur aniga. Sidii ayayna ku kala tageen. 1960kii dowladda Malaysia waxay iska jartay Singapore. Singapore maalintaas waxay ahayd maalin aysan nolosheeda ilaawin cashar weynna ay qaateen. Dowladda Malaysia wax kastoo dhacana waa ay diiday inay isku soo laabtaan Singapore. Singapore ma ahayn dal lagu noolaan karo waxa waa dal faqri ah isla markaana ay ku nool yihiin dad aad u hooseeya noloshooda. Maalmo yar kadib markii ay Malaysia ka go'day waxaa la soo saaray madaxweynaha dalka Singapore Lee Kuan Yew iyadoo la wareysanayo isla markaana uu ka dhaxooyo meeshii barnaamijka lagaga qabanayay. Waxyaalaha uu ka oohiyay waxaa ka mid ahayd inuu kala celin layahay qowmiyadaha ku nool Singapore. Waayo qowmiyadaha Singapore ku nool waxay kala ahaayeen Malaawiyiin, Euro-Asian, Hindi, Chinese, kadibna qowmiyadda kale ayay nabcayd oo ay dili jirtay. Singapore wixii maalinta ka dambeeyay waa isku tashatay. Lee Kuan Yew-na waxa uu sheegay inay yihiin in ay dadkani noqdaan dad isku xiran isla markaana ay u diyaar garoobaan dalkooda inay dhistaan. Kadib ay u soo laabtaan qowmiyadaha iyo waxaana isku leynayaan. Balse marka hore ay tahay inay dalkooda dhistaan. Maalinta ka dambeeyay Singapore waxay ku tillaabsatay horumarkan aad maanta indhahaaga ka daawanaysid.
1980kii Singapore waxaa laga furay shirkado aad u waaweyn, dad badan ayaana ka shaqo bilaabay. 2013 markay ahayd, dowladda Singapore airportkeeda waxaa lagu magacaabay inuu yahay airportka ugu nidaamka fiican dunida. Dowladda Singapore waa dowladda ugu ganaaxa badan dunida. Xitaa xajada waa ganaax. Xajo gaar ah oo waxaa jira doctorku kuu soo qorayo, taasaad cunaysaa. Aniga ma ogin noocay tahay. Dowladda Singapore dalal badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya waxay ka qaadan karaan cashar aad u muhiim ah. Sababtoo ah dadkaasu sida isku nabcaayeen waa sida ay maanta isku neceb yihiin Soomaalida maanta nool. Sida ay hal mar iskugu tashteen oo ay dalkooda u dhisteen waa mid ay awoodaan Soomaalida. Dareenka walaaltinimadu waa mid ka weyn ama ka baaxad weyn inta aynu qiyaasayno. Gabadhan aad u jeedaan magaceeda waxaa lagu magacaabaa Betty Anna. Sanadkii 1983 ayaa walaalkeed lagu xukumay xabsi daayin. Balse iyadu ma aysan rumaysan in walaalkeed xabsiga uu mudan yahay. Sababta walaalkeed lagu xidhayna waxay ahayd inuu dilay dad, balse wax caddayna laguma hayn. Betty Anna waxay ka tagtay shaqadii ay haysay oo ahayd kabalyeernimo, waxayna dib u bilowday iskuul. Kadib waxay gashay jaamacad, waxayna soo baratay looyarnimada. Sanadku markuu ahaa 2001, waxay maxkamadda ka codsatay in kiiska walaalkeed dib loo furo. Markii loo furay kadib, kiiskii waa ay ku guulaysatay, walaalkeedna waxa uu noqday dambi la'aan. 2010 markay ahaydna waxaa laga sameeyey qiso filinkeeda. Filinkaasoo guulaystay.